jeeso sunnihi rasuulkiyo sallallahu alayhi wasallam sawiyadkaarteedhe bismika allahumma amuutu wa axya marka subixii soo sare kacdina sadirkii mar kale noloshaada suday usumahad noqo sare ugu dhawaaq alxamdu lilaahi alladii axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. dadyow ogaada dalkeennan hooyo dunida meelna ku doorsan mayne darajadiisan ku diirsannaayo dib u dhiciisu danteenna maaha. ليس القريب قريب الشام واليمن إن القريب قريب اللحد والكفن إن القريب له حق لقربته على المقيم في نوطان والسكن. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. runahaantii maanta farxad weyn bay tahay anigoo maanta halkaa intaa soo arday soo istaagay waa wax lagu farxo alxamdulillaah inaga oo weynaysiinayna kitaabka ilaahay una istaagay inaan weynaysiiyo kitaabka ilaahay korna u qaado soo saaro maadaama aan ahay dumar inaan dumar soo saaro markaas ragga la tartama oo maanta halkooda istaaga oo soo saari kara dumarkana waxaan leeyahay gabadh kasta waxaad ogtahay ogow inaad soo saari karto jiil haddaad u istaagto. macallimada soo gaarsiisay heerkaas ardayda qalin jabinaysa 9 hablood iyo intaa kale ku daba tumaysaba ilaahay ha ka abaalmariyo oo abaalkaaga jannada ha ka dhigo. waxa weeyaan macallimad aad u qiimo badan oo qaaliya dhammaan maxaan ku dhahdaa heer gaarsiisay ardayda iyo dumarkaba ilaahay idinkiisa Allah nagu anfaco oo nagu abaalmariyo annagana jannada insha Allah quraankana ha noo fudaydiyo. caruurtaas maanta quraanka qalin jabisay waxay noqonayaan dad diineed Allah ka dhigo aamiina. salaxlay degmada salaxlay waxaad moodaa in ay sidii hore ka duwanahay oo bisha ka dambaysa ay soo tarayaan xafladaha qalin jabinta quraanka. ardayda quraanka maanta ka qalin jabisay waa dad wax badan ka bedeli doona salaxlay. mar kasta oo xafladda quraanku inagu barato amba ardayga quraanka baranaya inagu bato waxay naga yaraanaya wax badan. diinteena ayaa noolaanaysa, balwada ayaa yaraanaysa, dhibaatada ayaa yaraanaysa. dhibaatooyinka maanta dhaca waxay ka yimaadaan dad aan culimo ahayn, qaar gaangeysteris noqda, qaar midiya qaata, qaar tuug noqda, qaar wadada goosta. dadkaas waxay u badan yihiin dad aan bays diineed lahayn. waalidiinta waxaan aad iyo aad aan u farayaa inay caruurta waxbarashada la ogaadaan, maadi iyo diiniba. diinigana aad looga dhiso, ilmuhu markuu diini ka dhismo wixii kalena way sii furayaan. wax xaflad la isugu yimaado, xafladii ugu quruxda badnayd, meel quraanka ilaahay lagu weyneynayo ama arday ka qalin jabisay quraanka ilaahay kariimka ka qalin jabisay lagu maamuusayo. waa xaflad la isugu yimaado, xafladii ugu wacnayd weeye. Allah ka jisaysiiyo dadka ardaydan wax soo baray ama guriga ka soo barbaariyay ee ku dadaalay inay quraanka kariimka ka qalin jabiyaan ama macallimiinta bartayna waanu mahadnaqayaa. ilaahay baa mahad u sugnaatay. macallimiinta iyo dadka waalidiinta ah ee ardayda wax barayna quraanka kariimka barayna waanu mahadnaqayaa. 9 hablood ee ka qalin jabiyay quraanka kariimka dhamaystay maanta iyo macallimadooda deeqa Axmed Aadan waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka ha kugu daro. runaantii macallin deeqa
waxa weeyaan macallimada aanu jaarna nahay malcaamadda aanu jaarka nahay waa macallimad aad iyo lixaad u dadaal badan labada gelinba wax dhigta maalinta jimcaana dumarka u maxaadiraysa waxaan leeyahay dadaalkaaga ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro. malcaamaddan waa malcaamad aad u qaali ah waa macallimada keliya ee degmada ka dhigtaa wax dumara macallimadaasi waa keligeed degmada dhan ee Salaxley waa degmada dhan macallimadaasaa ka dhigtaa intaasoo arday soo saartay dumarkii way u yeedhay dumar badanna insha Allah way ku xigaano qalin jabinayaa oo badan waliba aad waxay ugu dadaashay oo leedahay macallimadaasi mar walba kastaba ka soo qayb gal dumar oo malcaamadan waxaan ku talagalnay malcaamad rajale oo fiican noqoto. macallimada deeqa ayaan ku celinayaa mahadnaqeeda miisaanka xasanaadka ilaahay oo saaran baan leeyahay hooyooyinka qaar ba waxay ku mashquulsan yihiin 4 caruur ama 5 caruur ama 2 caruur bal macallimada ka waran inta halka fadhido dhan ku mashquulsan maalin iyo habeenba aad iyo aad baan ugu dadaalayaa karteeda ka muuqata ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa wax bini aadam loogu duceeyo waxa ugu wanaagsan jannatul firdawsa ilaahay albaaba kaaga furo baan leenahay guri Allah kaaga dhisa baan leenahay. dumarkana waxaan ku buuranayaa mar labaad deeqa khayr Allah siiyo waxaa soo juhdiga gelisay dalka deeqaha la garab galo macallimiin taageerta oo wax la dhigta insha Allah taala kuwa sagaalka arday maanta soo baxayba insha Allah inay ka mid noqdaan oo ay halkeedii soo buuxiyaan aynu rajaynaa ardayda dhammaan hablaha iyo namada quruxda badan ee ay deeq soo saarteen waxaan leenahay ilaahay idinka dhow kuwii ku intifaaca camalkooda ee dalkooda iyo diintoodaba iyo waalidkoodba ugu taray ku anfaca ilaahay idinka dhigo. waxaan u mahadnaqayaa macallimada ardaydan qiimaha badan waxa weeye macallin deeqa ka shaqaysay ee waxa weeye qaabkan ay ardaydu waxa weeye inoogu akhriyeen shidada waa maqlayseen qaabka ugu dhigtay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha kuu saaro miisaanka xasanaadka. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay dadka waxa ugu fadliga ugu badan qofka quraanka barta dadkana bara. inta waxaan ku dari lahaa waxaan u mahad celinaynaa macallimada ardayda wax bartay runtii marka la yiraahdo macallin iyo macallimad waxa ardayda u fiican macallimada waayo anigu in badan baan wax dhigayo waan arkay ardayda yaroo kale qaar baa maartay matagay meesha ku matagaya hadday hooyo tahay hooyadii way hagaajinaysaa laakiin macallinkii waxa laga yaabaa inuu yiraahdo war bal hagaajiye halka oo ka dhaqaaqo marka meesha ay macallimadu joogto ha laga doorbido meesha uu macallinku joogo. sidoo kale waxaan boorinayaa Salaxley mala macallimad qura waxa ku dhigtaa lagu yiri in macallimiin badan oo dumar ay soo baxaan oo hawsha lagu dadaalo oo hablaha lagu dhiirigeliyo quraanka inta dhameeyaan way ka tagine inay macallimiin noqdaan. maanta waxaanu joognaa meel aad u qiimo badan ilaahay kalaamkiisii oo kor loo qaadayo xaflad kasta oo la qabto waxa ka qiimo badan ta lagu weyninayo kitaabka ilaahay waxa kale oo yadna cajiib ah hablihii yarayalka nashida ka aqriyay inta la leeka waxa loo faansi iyadoo af Soomaali laga dhigay ayaa hadda ducooyinkii magaranaysa lagu dabaqay macallimiinta sidaa u barbaariyay ee carruurta saa wax u fahansiyay iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu khayr iyo xasanaad ka siiyo. anigu ka gudoomiye ahaan horta waxaan nacabahay xafladaha ma jeceli laakiin maanta waxa ilaahay ila kulmiyay xaflad la tago tii ugu qiimaha iyo qaayaha badnayd lagu qalin jabinayay 9 hablood oo horeba aanay uga dhicin wadankeenan 9 hablood oo quraanka khatimay maanta aad iyo aad baan ugu ducaynayaa hablaha iyo macallimadan deeqa ee halkaas soo gaarsiisay dhaliilshayad waxay tahay hadaan nahay maamulka anigu suuqa carruurta waan isku aragnaa laakiin madrasadaha iskuma banaan arag wuxuu baaban mooday ciyaal halkan ku ciyaaro wadada laakiin maanta waxaan arkay inaanu magaalada baan wareeyay anaku maamulo maanta waxaan aad ugu ducaynayaa carruurtan iyo hablahan qalin jabiyay ilaahay ku anfaco quraanka ay barteen iyo cilmiga ay barteen halkaana ka sii wadaan. bisinkaan cugsanay wixii aan bisin lahayn inuu barakoobin baan bayankada wada ognahay ee bulshooy baydkeena weyn bulshooy binida
كباحة معلمين باوليو بلشوي أرديدين